وأن شيخ إن شاء الله تعالى نقول جندونه سؤال شوقه الرئيسة قرآن كقريها الله سورة كور الشيخ سؤال شلبات شيخ من بناته إنك بيه يستلقوا بيرقة بدأ سؤال صدحات وي واحد كور أنت الشيخ داوشده كبده وسؤال صدحات سؤال أفراد waxaan deganahay guri qabuur ku dhex yaala ee salaada ma leega aqbalaya su'aasha sharaad nin baan dar ilaahay u qaaday gaadhiga ayaa nala dhacay ninkii waa dhaawacmay wax ma leegu leeyahay way su'aasha lixaad gabadh ayaa ninkeedii ka maqan yahay 2 sano teleefankiina waa qaban waayo teleefankiina waa kama jawaabayo meel fogna wuu joogaa gabadha xaalkeedu iyadana muxuu noqonayaa su'aasha toddobaad man bannaan tahay in aabbahay oo dhintay aan xoolo u qalo بسم الله الرحمن الرحيم قرآن كريم قلوبتا لغو قرحينيا قلوبتا ayaa lagu qurxinayaa ayna ku xafidsannahay dhaqanka lagu qurxinayaa sida Aisha ay tiri kaana khuluquhu alquran akhlaaqdii nabigu waxay ahayd quraanka meelaha la diiday waxa kamid ah meelaha quraanka nadaafad xumo ugu jirto sida baabuurta kolayada jaadka gidaarka boorkii wasakhdu ay ku dhacayso meelahaas ay culimadu aad u diidaan laakiin meeshii nadiifa ama guriga dhaxdiisa ama xafiiska dhaxdiisa ee wax wasakh soo gaaraya aanu jirin ma diidaan culimadu waayo ixtiraam iyo ikraam bay dadku uga jeedaan inay maamuusaan laakiin allawxaat meelaha hadiya jeer ihaana ay ugu jirto quraanka ayaa culimadu ay diidaan waayo tacdiimul kitaab alkariim wal quraan weynayntiisa culimada islaamku way isku waafaqeen marka wixii ihaana ugu jirto ama wasakh ay ku dhacayso meelahaas laga ilaalinaya ilmaha waa lagu beeri karaa hooyada haddii aabuhu nool yahay haddii biyihii intoo laga reebay intuu dhintay kadib iyadii lagu shubo dee xidhiidhkoodii wuu go'ay markii uu dhintay ka furantay way dhici kartaa moogta intoo biyihii laga qaaday isagoo dhintay kadib in iyadii lagu shubo laakiin hadday isu nool yihiin meherkiina isu hayo waa lagu beeri karaa maadaama aanay suuroobaynin sidii dabiiciga ahayd inay ilmihii u qaado waxaase muhiima gacan aamin inay arrintaas samayso oo qof aan aamin ahayn ama gaala ama ujeeddo kale la haddaad ammaanada noocaasa u dhiibto dee mid gaal buu kugu dari karaa tiininka iyo mid gaal buu isku dari karaa ama mid xayawaan buu ku dari karaa gacantu inay aamintay waa muhiim qof muslim oo dhakhtaro aamina gurigu inuu qabriga ku dul yaalo waa la eegayaa ma qabrigaa horreeyay mise guriga haddii qabrigu uu horreeyay dee gurigaa laga daynaya haddii qabrigu uu dambeeyayna qabrigaa la saaraya xawaalaha muslimiinta lagu daraya waayo qofkan meesha lagu aasay isaga qudhiisu intan uu yeeshay kanifka dee dowladdii hoose intan siisa kanna booskii aakhiru isaguna intan ka helay marka in lagu qabsado laga riixo dee dadka ifkaba kama ogolin moogta imika meeyarku uu kala celinayaa dadku see u kala horreeyeen buu kala celinaya xulay baloorkani uu sharciyeysnaa siyaasiya dayr buu lahaa adeer u dah iska tag meel kaloo bannaan doono marka qofkana isaguna mitiriya barhkan u yeesho inkastoo dhibaato weyn iminkayna haysato deegaamadeenna weliba hargeysaan filayana usii badan tahay dadku markay halkan deganaayeen xabaaluhuna agtooda ahaan jireen magaaladii way sii ballaarato xabaalihii way sii masaxmeeno haddana waa la sii guuro agtoodunbay ka sii dhigeen qaybo dhanbaaba magaaladii xabaalaba ah maxaa la yeelayaa taa qudhigeedu waxay u baahan tahay masalooyin aanu kolley baxfiyaynay maalmahan aanu baadhaynay ayay ku jirtay bal inay suuragal tahay meeshii qabrigan ihaana ugu sugantay ee lagu dulaynayo in laga saari karo taasaanu iyadana baxsi ku wadno weli maanaan ka salgaadhin qofka direefarka ah ee gaadhiga wada mar walba wax laguma yeesho marna waxbaa lagu yeeshaa marna waxbaa lagu waayaa taasina kolley waxa ay la xidhiidhaa muxuu xadgudub sameeyey muxuu gaboodfal sameeyey labadaasaa loo qiyaasaa mar baanu xadgudub iyo gaboodfal toona samaynin markaasoo kale waxba looma qabsanayo sharci ahaan waxaan raacin lahaa
dadka baabuurta leh ama gaadiidka leh iyaga sharci ahaan waxba laguma leh xataa qaanuunka farjiga waxba lagu lahayn sharciyada iska daayo ninkii gaari buu leeyahay magaalo kale uu iska joogaa darawal baa wada darawalkaas uma arrintiisa leegaya shilka uu galay isaga qalad ma u soo baydhaya mise uma soo baydhayo laakiin ninkii baabuurka lahaa oo maanta aynu ognahay kala bar in xaq la saaro Soomaa wixii intoo la qaybiyaa kala bar dusha laga saaraa isaga de maxaa uu qori nin leeyo nin kala riday oo kale marka taana waynu baraarujin lahayn ninka oridani ay sheegtay in la waayay kiiskaaga maxkamadda aad u gudbin doontaa haddii aad sabri kari weydo maxkamadda degmada qaadiga baafinaya telefoonadiisa siin doontaa wuu la xidhiidhi de hadduu u dhagooleeyo wuu isdhagatiro wuu isdhatiray inantiina inuu cadilaabu doonay dee lama ogola dumarka in lagu tacadiyo hooyooyinkeen iyo hablaheenna iyo ooriyaheenna looma baahna in lagu tacadiyo la taranseejiyo qofku dee cunno may soo doonana taran bay doonaysa marka in la dayaco looma ogolo qur-aanku wuxuu diiday in gabadhii fatadaruuha kal mucallaqa iyadoo deldelan in laga tago wuu diiday oo nin ahayn nin la-aan ahayn ku xisaabtan gabadhaad cadilaysa inay walaashaayoo kale tahay inay inantaadii oo kale tahay marka ama waa inuu furaa ama waa inuu qabaa si wanaagsan qaadiga ka fasakhaya hadduu ku qanco inuu ninkani yahay mid inanta caarcaarinaya ama silcinaya waalidka sadaqa waa loo bixinayaa oo waxyaabaha loo qabanayo waxa ugu sii muhiimsan waqafka guri loo dhisa masaajid ceel biyo wadooyinka waxyaabahaas waqaf loogu bixinaya sadaqa la cuno hal marna waa loo sameyn karaa iyo raashin wuxuuna si culimadu leeyihiin waxa laga daynayaa taaqiidka waqti xadidan in lala eegto oo yeerliya ama saddexdii habeen mar ah waqtiyada gaarka in ku xidhno waqtigaas cayiman baa laga daynaya wallahu a'lam aydeer xasuusiye ee kulli su'aalo fara badan isku mid ah jiray qaar badan oo aan fahmi weynaa jiray qaar waqtigu ka dhacay baa jiray marka intaana waa la dul qaadanaya Soomaa way waan soo koobina insha Allah ta'ala saddex su'aalo degdeg ayaan sheekha weydiinay insha Allah ta'ala su'aasha ugu horeysa gabadh baa waxay tiri jimba sheekh igu jira quraan badan baan saaray wuu iga bixi waayay kaaga darana salaada markan galana wax allaali waxaan tukanayaa garan maayo imaamka hadan ku daba tukadana wax akhriyo garan maayo salaadaasi markaas si khushuuc ma laha xaalkaygu muxuu noqonayaa samaxaad igula talin lahayd su'aasha labaad nin iyo seedigii ayaa istilay guddi ayaa dhexdhexaadin gashay labadiiba way dhaarisay dhaartii waxay noqotay gabadha fur dhaarta miyaa la yeelayaa mise lama yeelayo su'aasha saddexaad sheekh shaqaale dawladeed ayaan ahay shaqo kale ayaan helay si laakiin dawladdii mushaharkii waan ka qaataa anigoo shaqadeedii kale ka shaqaysan dawladdiina mushaharka waan ka qaataa mushaharkaasi ma xalaal baa se ma xaaraan baa wax kala mid weyn intaas ku jooga يا واي هاي بسم الله horta mushkiladan jinku way jirtaa lama dafiri karo dadka qaar kood oo warbaahinta ka hadlayo jinka dafiraya waan arkayba laakiin hadduu dafiro isaga laga yaabaa inuu galaba jinku wax jira weeye nabi maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu galo qofka inna shaytaana yajri min ibni aadama majra dam shaytaanku qofka wuxuu ka maraya halka dhiigu maraya tubiskan ama xididadan dhiiga ayuu isaguna qaadaya maxaad ula yaabaysa soo dhakhtarku kuma oranaya markii aan laabka gelinay waxaan ka helnay bacteria ku jirta jirkaaga Soomaa microscope-kan iyo mijarkan baa lagu eego dhiigaaga baa lagu arkay in bacteria ku jirto jinkii maxaad ugu diidaysaa la xayawaan noolahay waa kan dhiigaaga ku jiree idan wixii xadiidku uu sheego ama quraanku uu sheego in la qaataa waa waajib quraankiina ilaahay waa ka waramay inuu jinku saameyn ku yeelan karo qofka uu wax yeeli karo suuratul baqara ayaa ilaahay uu ku xusay aayadeebu ku xusay alladina yaakuluuna ar-riba la yaquumuna illa kama yaquumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas dadka ribada cunaa qiyaamaha waxay soo taagayaan iyaga oo u dawaqsan oo u dardaran sida qofku shaydaanku dureeyo oo kale qofku shaydaanku dureeyay ee jingalay sidoo u dawaqsan yahay ayuu qofkii riba cunaha isagoo u dawaqsan oo dhacdhacaya ayuu imanayaa buu lahay waxa se xusid mudan dadku way u kala nugul yihiin jinka iyo galitaankiisa ama inuu wax yeeli karo oo qofka had iyo jeer cibaadada badan
dikriga badan ee quraanka ismariya isku akhriya sidoo nabi maxamed quraanka saddexda qulcuud isku akhri jiray qul huwallahi labada qulcuud habeen walu seexanayaba min saddex jeer buu akhriyay qul huwallahi saddex jeer labada qulcuuduna min saddex jeer jirkiisu marinaya intuu gaaro markuu xanuunsadayna Aisha waxay leedahay gacantiisa shariifka intaan ku akhriyo maadaama iga baraka badantay ayaan marinayay waa nabigii lagu soo dajiyay isku akhriyay inagoo iska silicsanna maxaad u malaynaysaa aad baynu ugu baahi badannahay marka qofku waa inuu qalcad ka gala shaydaanka iyada oo uu quraanka ku deyranayo iyo dikriga ilaahay mar walbana waxaynu ku qanacsannahay waxaan alla qadarin inaanu inagu dhacayn jiliyaysiba wixii ilaahay ku qadarun ba kugu dhici kara haddaba haddii ay dhacday in salaadii waswaas kaaga yimaado horta talada u horeysa inuu bixinaynaa waxa weeye culimada sida saxda u daaweysa ayaad u tagaysaa cilaajka ee aqoonta u leh ee alla ka cabsiga leh ayaad u tagaysaa kadibna quraankii iyo ducooyinka waaridka ana way kugu akhri dhirta uu ka xanaaqana way ku qori doonaan way ku marin doonaan biidin illaahi tacaala saasu kaaga tagaana waa kaaga ducaynaynaa inta aad mushkiladaysantahay salaada wixii kaasi noqdana de waa wax awoodaada ka baxsane waxba ka noqon mayso insha Allah qadiyada la xidhiidha laba qof baa la dhaariyay oo waxa lagu dhaariyay dood dhaxmaraysay daraadeed soo dalqada masaasa taasi sax ma barigeena hore waxay oran jireen odayaashii hore waar ninka hebel hala dhaariyo oo hala mariyo walle iyo qooriyo xiraale iyo xirafur waxba hala isugu daro marka ninkaasi wallaha uu ka soo dulboodaya ku hakan maayee inuu ilaahay xoolahana ka mariyo ooriduna ay ka furan tahay kuwaana ugu dara macnaheedu markaa waxa weeye qofku wallaha aanu ku kalsoonayn wallaha aanu qabin wixii uu weynaaye lagu joogsanay inuu yahay ee qooriyo xilaha iyo xoolaha ayaa kala weyn wallaha markaa magaci ilaahay waxa wax lagu dhaarinaya waa magaca ilaahay qof hadii la dhaarinayo wallahi billahi tallahi baa lagu dhaarinaya asmaada ilaahay laakiin laguma dhaarinayo wax kale nabigu wuxuu man kaana xaalifan falyahlif billahi aw liyasmut xadiidkii saxiixa qofka dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamusayu dambaabine waa tageelaya laga qaada iyo waa tan galabkaaga geeri ku baneeya iyo waa tan aabahay waayo dumarku ay ku dhaartaan intaasi midna meesha ma yaala waa laga daynaya inaad mushahar ka qaadato maalka ummadda waxna aanad u qabanin waa qaladee adigu miyaad jeceshahay qof aan kuu shaqaynin inuu mushahar kaa qaato ee waxaad dawladda ula dhaqmaysaa shakhsiyaadkana ula dhaqmaysaa sidaad jeceshay in adiga lagula dhaqmo soo ma adiga nin qof aan waxba kuu qaban inuu bil walba kuu soo xadirula igu shub intaa waad su'aalaysaa waxaad leedahay muxuu ahaa intaan kuu shubay maxay ahayd dee waa inaan isaga soo xaadiray buu ku leeyahay dee orad iska tag baad leedahay wax iska soo xaadiray uma baahniye dee dawladduna waxay ku leedahay waad iska soo xaadirtay iga daa idan markaa kolley iyada oo aan la sii faahfaahinin su-aasha dee qof shaqo u diyaaro oo heshiis lala galay oo aan waxba qabanayn baan u fahmi karaa laakiin qof ama naafa ama bukaana ama beeshana dee kaasi kuma jiro oo inaanu waxba qabanin dee iyana heshiis baa lagula galay oo qofkii wuxuu abaalmarin buu qaadanayaa ama waa qof dee bukaan muddada ku jira ama la fasaxay taas waa xaalad gaara ee heshiiskii la isku ogaa waa inuu shaqeeyo waxna ma qabanin dee wuxuu wax ku qaadan lahaa waqtigu iibsado marka taana waxaan filayaa in inta aan ka garan karaya ama aan ka fahmaya intaas weeye jazaakumullahu khayran min cid baynu soo ducaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin maareeyaha dekada iyo mas-uuliyiinta kaleba iyo meeyarka sida fiican u soo xaadirteen runtii iyo sida maaragtay wacdiga u danaynaysaan midiyaro ma walaalayaal maadaam raggu soo batay midiyarun baan idin dareensiin lahaa haddaad tihiin reer berbera markaasi waxa weeye midhaan keligeen idinku ahayn laakiin dhammaanteen inoo wada yaalla oo ah dadka intii isku deegaanihiba waa jaar xaq dhowr iyo xurmo iyo xuquuq gaara bay isku leeyihin qabaa'il kala duwan ha ahaadeen dana kala duwan ha lahaadeen qoysas kala duwanna ha ahaadeen qadiyaddan baraarujin lahaa waxa weeye in la ilaashado wadajirkiiyo midnimada iyo quluubta wada joogta iyo in la isu dulqaato oo la ogaado shayga la yidhaahdo cafiska
iyadoo culimada iyo madaxduna hormuud ka yihiin hadday siyaasad tahay siyaasaddu haa dee dadkii hogaamin bay u baahan yihiin hogaamin ayay u baahan yihiin cid waloo ku fa'ayna xaq bay u leedahay markaa si nasiiha oo hufan oo aan lahayn xadaafiir iyo ceebayn iyo xadgudub toona ayaynu u baahannahay in dadku ay u raadsadaan ay u dhammaystaan howlahooda iyo hogaamintooda oo aan qolana qolo duraynin ku xadgudbayn waataynu xalay ka hadlayna xaqulmuslimi cala almuslim xaqa uu qofka muslimkii leeyahay karaamadiisa iyo xuquuqdiisa la dhowrayo marka qadiyadda noocaasi waa ta wanaajinaysa amniga waa ta wanaajinaysa cibaadada waa ta wanaajinaysa deegaanka oo deegaankii wuxuu ku qurux badnaanayaa dadka wada jooga markay quluubtoodu wada jirto ay dhan waxu wada riixayaan ayaa ay wanaagsanaanaysaa ilaahay baa ummadda markuu ummadna sheeganayay waxa uu wadkuruu nicmatallaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha ilaahay baa idinka badbaadiyey godkii naarta ahaa ee qabyaalada ahaa ee qarkiisa saaraydeen ayaa ilaahay ummadda ummadna sheegtay nicmada ilaahay uu idin siiyey diinta iyo iimaanka iyo islaamnimada xusuusta marka dadku deegaamay isugu faanayaan gobolka saaxil gobolka hargeysa ama maroodijeex saasaa loo soconaya tartiibtaas weeye aqoontiisa dhismihiisa horumarkiisa ilbaxnimada uu gaadhay oodii ab ka dhow baa lay soo mahmaha soomaaliyeed maaha waxa ooda la yidhaahda abka ka dhow walaalkaaga ku ag taagani ee isku deegaanka tihiin isaga ayaa dad walba kaa xiga haddaad bukooto wuu ku booqanayaa wuu ku daaweynayaa haddaad dhimato jinaasadaadu ka ergeynayaa wuu ku raacayaa marka sidaasaynu u xisaabtamaynaa dadkuna markaas sidaasay xuquuq isugu leeyihiin marka dadka qaarkood baa laga yaabaa in arrinku yaro qalloocdo bahal qabyaalad la yidhaahdo balaayo af lagama dhowre baryahan dambe soomaalida guud ahaan iyo gaar ahaanba de innaga waynu maqmaqlaynaa iclaamka in wax soo duulduulaan marka sidhinkaasi yuu nagu sii dallacmin sidhinkaa ha la dabciyo soo sax maaha walaalayaal sidhinkaa in la dabciyo madaxdana danbay u tahay maalqabeenkana danbay u tahay oo madaxdu waxay wada maamulayaan dadkoo dhan ninna reerkiisu kuma filla ninka madaxdaa dadkoo dhan buu wada xukumaya in mar kastoo cadadku u sii bato suuqiisaa sii badanaya soo maaha qofka ganacsadaha ana qolo qura waxba kama iibin karo ganacsigiisu inuu ummadoo dhan wada gaadho meel walba shaabadiisu ka muuqatuu jecelya wadaadkuna waa saasoo kale dee soo maaha qoladiisoo qura hadduu wacdiya ka waran dee intan in leega iman mayso isaguna badeecaddu sidaa waaba tii ugu qaalisanaydba waa ammaano diiniyahoo gaalkaa xaq u leh gaalka xaq buu leeyahy gaalka iminka halkan jooga idinla talinaya ama farsamada iyo aqoontan idin baraya dee notebookuna ka samaysanin oo aqoon maadiinuna ka qaadanin isaga laftiisa isortaag adigoo isticmaalaya aqoontaada iyo luqadaada dabeetana ilaahay xaggiisa ugu ergee oo islaamnimada u bandhig kaasaa xaq inagu leh oo waa inay keeni kartaa sidaad u qancinayseed macaanka islaamka ugu sharxayso inuu walaalkaagii muslimka ahaa ee intanaad ka sugaysa wax ka weyn kugu tari lahaa waa inuu noqdaa marka hanka ummadda ayaynu ka hadlaynaa walaalayaal inuu weynaado hanka ummaddu waa inaanu cidhiidhi soo gelin oo qof waliba uu ku xisaabtamaa suuqiisu siduu ku ballaadhan lahaa xataa hadduu maslaxad doonayo hadduu aakhiro doonayo waa dee wataynu ka hadlayna laakiin xataa hadduu adduunyo doonayo in hankiisu sidaa u weyn yahay ayaa qiimaha weyni uu ku jiraa deegaamaduna sidaa u xisaabtamaanoo tartankeennu qolo iyo qabyaaladaanu noqona deegaamo uu noqdo oo aqoontiisa deegaankaa la eego horumarkiisa la eego oo dee waa idin marar badan waa la idinku majeertaa waxaa la yidhaha berbera runtii wax badan baa horumaray laamidii nadaafadii gobollada kale marka ay dhexdooda ka wada hadlayaan ha lagu daydaa la yidhaha marka sidaynu u baahannahay waa saas weeye waxaan arkayaa haddii si xun loo isticmaalo waxaa la yidhahdo qabiilka waddankuna wuu xumaanayaa diintuna way xumaanaysa wax badan baa qalloocanaya marka jazaakum allahu khayran anigoon lahayn waxbaa jira laakiin taan ka hadlayaa waa wax caamahun oo aynu iclaamkeenna iyo duulduulka aynu soo arkayna iyo wakhtiga doorashooyin iyo wax yimaadaan xaraarada iyo xiisada iyo xayraanna iska soo yaro biirbiira soo maaha taasun baan ka hadlayaan leeyahay si degan oo xikmadaysan oo xaq ku jira ha loo raadiyo ilaahay dembigeenna ha dhaaf kii waalidkeenna ha dhaaf aakhiriya iftiinka wasirhan allah hayna waafajiyo dadka inta bugta allah caafiyo
cudurka caafimaad Allah ugu bedelo cudurka caafimaad Allah ugu bedelo inta muraad le muraadkoodan macsiyo ahayn Allah siiyo muraadkoodan macsiyo ahayn Allah siiyo qof walo inaga midiiba ujeedu leeyahay waxbuu ka fikiraya waxbuu danaynaya wixiisa oo diinta khilaafsanayn Allah siiyo dalka dunyada dadka diinta waxaynu haynaba Allah inoo barakeeyo waxaynu hayna Allah inoo barakeeyo balaayadana Allah in hareer mariyo muslimka dhiban ee walaalaheena caalamka ku nool dhibka Allah ka dulqaado nasrigiisa iyo guushiisa Ilaahay ha siiyo cadawgana Allah uga heliyo cadawgana Allah uga heliyo cisigeenana kor Allah u qaado qulubteennana Allah isu jeediyo kuwa aan isu daba jeedinna isu soo jeesto isqaabila Allah inaga dhigo kuwa ifka ku walaala Allah inaga dhigo jannadana kuwa walaaltinimada ku tago halka isku waraysta Ilaahay inaga dhigo cadaabkiisana kuwa Ilaahay ka nabadgeliya Allah inaga yeelo qoysaska iskhilaafsan qulubtooda Allah isu jeediyo caruurta inta halowsan Allah soo hanuuniyo inta hanuunsanna Allah inoo hagaajiyo dadka caruurbanaya caruur wanaagsan Allah siiyo inta caruurtu ka leexatayna Allah u soo hanuuniyo Ilaahay u soo hanuuniyo dhalinyarada guurka u baahan oori xalaal Allah siiyo oori uu ku nasta Allah siiyo hablaha wiilal u baahanna wiilal wanaagsan Allah siiyo waxaynu haynaba waxaynu ayno ku istiraxna Allah ka dhigo dawladnimadana Allah inoo wanaajiyo qiyaadada iyo hogaamintana Allah inoo barakeeyo xaqana Allah ku toosiyo tubta toosanna Allah waafajiyo